daawadyaal kusoo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka brit somali t v oo xilligan oo kale aad ka daawataan brit somali t v qodobada caawan idinku hayna waxaa ka mid a maalinta axadda aan ugu soo foodla haddii allaha wadda la yidhaahdo ayaa dadweynaha talyaanigu ay u dareeri doonaan sanduuqa codaynta iyada oo lagu wado xisbiyada haatan loola tumaya marka la eego kuwa ugu tunkayo waa sida hadalka loo dhigay inay u janjeeraan dhinacaas iyo weliba ruushka waa sida la leeyahay sidoo kale bulgaria ayaa laftigeeda waxaa kusoo socda doorasho bisha oktoobar ee nagu soo socota horeyna waxaanu ogeyn hungary hogaamiyaheeda victor orba ninka la yidhaahdo in uu markaa u janjeero dhinacaas iyo ruushka arrintaanu ma keeni kartaa yurub oo markaas midba ay kala dildilaacdo oo kala googoodo ma keeni kartaa siyaasad ahaan baan ka hadlaynaa iyo weliba dhaqaale la-aan dagaalkii ruushka iyo ukraine ayaan meesha ka maqnayn dayib rajab erdogan ayaa new york ka sheegay 200 oo askari oo ukraine inuu soo daayay guulana uu ka gaaray dagaalka un-ta iyo reer galbeedku ay ka gaari waayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka garnaqsaday un-ta kana hadlay halkaas uu ka hadlay abaaraha iyo weliba la dagaalanka al-shabaab loogu jiray iyo shacabka soomaaliyeed inay yihiin shacab adkaysi badan dagaaladii ragaadiyey dhinacooda dhulka la dhigi waayey dalkuna uu soo kabsanayo arrimahaas ayaanu fooda daraynaa injineerkaas ila soo dhaweeye boqolkiiba boqol idinkuna soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogta waxaanu leenahay jamco wanaagsan waynu isdugsanaynaa injineere بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa ku salaamaya cabdi xaafid salaan kaliya laaba oo diiran ayaan kugu salaamaya adiga iyo tiimkaagaba Brit Somali TV waxaan kaloo salaamaya daawadayaasha qiimaha qaayaha leh oo barnaamijkaas aalaba udub dhaxaadka u ah waa salaamaya si sharaf iyo karaama milga iyo macna lana waa u soo dhaweynaya cabdi xaafid injineer intaas iyo lamida hawada ku soo maraynaa waxaan hubaa inay aad ugu faraxsan yihiin inay ku maqlaan ilaahay fadligiis kuna arkaan injineer aanu ku bilowne talyaanigii dalka talyaaniga doorashada ka soo socotaa aad iyo aad ayay u qaraar tahay waxayna saameyn ku yeelan kartaa baan leeyahay siyaasadda yurub ayaga iyo bulgaria haddii labadooduba xisbiyadan u janjeera dhinaca ruushka ay soo baxaan arrintu ma wanaagsan aad iyo aad cabdi xaafid horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay axadda hadda fooda nagu soo haysa talyaaniga doorasha ka dhacaysa waxaa la wada saadaalinayaa xisbiga la yidhaahdo fratelli d'Italia walaalaha talyaaniga ayaa la yidhaha xisbigaas inay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qaban doona xisbiga waxaa hoggaamisa gabar gabadha Georgia Meloni la yidhaahdaa waa gabar ka timid xagga garabka midigta ka timid oo runtii qolooyinka lagu tilmaamay euro skeptica qolooyinka aan European Unionka la dhacsanayn qaabka ay maaragtay wax u wadaan waxa kaloo meesha ka maqnayn baa leeyahay odagii dinosauria la yiraahdaa Italian political dinosauria waxa weeye waa Berlusconi odagii waa soo noolaadaa la leeyahay asaga laftiisu waxa weeye waxaan la soconnaa inay saaxiib aad u dhow ahaayeen Putin garabka midigtu asaguna ka socda waxaan meesha ka maqnayn ra'iisul wasaare hadda la riday Matteo Salvini oo asaguna garabka midigta ah kooxahaas ayaa waxa la leeyahay hoggaanka inay u qabtaan bay u badan tahay dalka talyaaniga haddii arrintaas u dhacdana waxaa runtii dhacaysa talyaaniguna wuxuu ka mid yahay dalalka gaaska ruushka aad iyo aad ugu xiran oo maaragtay la'aantiis ay dhibka weyn haystaan arrintaas waxaa la leeyahay haddayba dhacdo oo xisbiyadaas ay meesha ku guulaystaan in dildillaaci ugu horreeyey ee yurub la arki doono victor orban saad hore u sheegtaba waddanka hungary markoodii horeba ruushka xiriir fiican bay la leeyihiin way diideen cunaqabataynta waxaana su'aalo badan baana ka yimid cabdi xaafidow sideedaba cunaqabatayntan wadamo fara badan xataa jarmal ka mid yahay shacabku su'aalaha ay ka keeneen iyo siyaasiyiinta qaarba oo ah war inaan annagu isburburino miyaa caawimo u noqonaysa Ukraine ileen dhaqaale ahaan baanu u burburaynaa gaaska ruushka waa loo baahan yahay waxaana jirta dagaalkan hadda ruushka iyo markaad eegto Ukraine hubka ugu culus ee lagu dagaalamayo dadku waxay u maleeyaan inay gantaaladan iyo diyaaradahan iyo sawaariikhdan waxaasoo dhan waxaa ka culus hubka gaaska hubka dhaqaalaha cunaqabataynaha kuwaasaa ka culus shacabkana ruxay dhinac walbaba aad iyo aad u gelgelay cabdi xaafid
waagaag injineer haddii ayba dhacdaba in markaas Yurubiyaanku danahoodu ay iswaafiqi waayaan siyaasadadii mid dhaqaalaysan ilaan dagaalkan Ruushku iyo Ukraine waxa uu keenay caqabado fara badan waxaan sidoo kale arkayay Jarmalka laftigiisa oo leh waxaan bixin karnay waa bixinay welina taftaana lagu dhegan yahay laga yaabaa haddii dagaalkan qaboobaha la galo inuu weji kale oo dhaqaalo uu yeesho oo markaa European Unionka laftigooda ay dib isugu noqdaan ay yidhaahdaan maxaa naga go'a maxaa naga go'i karinin oo markaas culays badan fara badan Maraykanka ay soo saarto inuu dhaqaalo badan bixiyo saddex ciladoodba winterka way imaan karaan kow waa mida tan koowaad ruushku afti buu qaadayaa wiigan uu ka qaadayaa dhulka gacanta ugu jira taasu waxay u gogol xaaraysaa ruushku inuu yidhaahdo dalkan anaa iskale waana difaacanayaa ciddii xoog iga qaadan karta ha timaado wixiisoo dhanna uu meesha soo dhigto horta taasu waa cillad cilladda labaad waxay tahay qababaha imaanaysa dadka shacabka reer yurub intee in leeg bay xamili karaan waxaan ognahay gaasku inuu aad u qaaliyoobayo waxaan ognahay maaha keliya in la waayaye wuu qaalibuuba noqonaya waxaan la goyn karin buu noqonaya taas waxay keenaysaa shacabka in culays dhaqaale fuulo waa mida laba culays qaboobe inuu fuulo oo mataqaanaa gaaskii jarmalku rationing wax la yidhaha bay sameeyeen xadidaad gaaska la xadidaya isticmaalkiisa waxyaabahaasoo dhan baa qodobka saddexaad oo ah qodob aan isleeyahay muhiimadiisa gaar uu leeyahay waxa weeye ishaysashada reer galbeedka ay ku walaalaysan yihiin in ruushka lala dagaalamaa ma sii jiri doontaa saad horda u sheegtaba dildilaac baa hadda muuqan kara haddii siyaasaduhu yurub ay isbedelaan oo kuwa hadda hoggaanka haya caanaha iyo biyaha iyo qalabkaba la daba taagan ukrainiintu haddii xukunka laga tuuro kuwa kale yimaadaaho siyaasadaas ma kusii dhaqmi doonaan marka su'aalahaas oo dhan ayaa meesha imaanaya waxayna u yeeli karaan waa su-aashaada aan usoo laabta weji cusub ayay dagaalka u yeeli karaan cabdixaafid aad iyo aad injineer aada u mahadsantahay daawadayaal burid somali t v ayaa daawanaysaan sidee u aragtaan doorashooyinkan soo socda iyo kuwa hore u dhacay sida hungary oo kale oo dhinaca bare u jarjeerta ruushka fikirkiina iyo ra'yigiina nala wadaaga qodobo kale ayaa noo soo socda laftigooda oo uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamed khudbadiisii maanta balse intaana halkaas u gudbinin injineere dayib rajab orjogan new york buu ka hadlay waxa uuna sheegay guule isdaba jooga inuu horwadeen ka ahaa marka la eego arrintii qabanjiga haddii aan lahayd wadahadaladii oon meeshii la rabay soo gaarin laakiin kuwa horoo dhacay ka xoog badnaa iyo weliba 200 oo maxaabiis oo Ukraine oo la soo daayay meesha Sacuudiga oo 10 ku guuleystay soo dhawo aad iyo aad u mahadsantahay cabdixaafid halkaas aan yar saxo 200 Ukraine keliya maahe labada dhinac ayaa 200 isdhaafsaday taas waa qodob waa maxaabiis la iswadaarsaday weeye taas waa qodob Erdogan maanta wuxuu ka hadlay centerka weyn ee Turkiya ay ku leeyihiin magaalada New York ee la yiraahdo mataqaanaa Turkiya Center la yiraahdo centerkaas uu ka hadlay runtii wuxuu ka hadlayna guulaha ilaa hadda ay gaareen iyo kuwa uu rajaynayo Erdogan wuxuu sheegay maanta inay ku guuleysteen in maxaabiistaas la isdhaafsado taasna macnaheedu ay tahay runtii guul siyaasadeed inay tahay bilowgii dib la isugu soo noqon lahaa wadaxaajoodka loogu soo noqon lahaa inay tahay mahadcelin ballaaran buu wuxuu u jeediyey labada hogaamiye ee labada dale dagaalamaya hogaamiyashooda ayuu mahad u celiyey inay mataqaana arrintaa ka aqbaleen runtii hal ujeeddaanu leenahay buu leeyahay Erdogan ujeeddadeennu waxay tahay dhiigga daadanaya saan ku joojin lahayn saan la soconnaba waddanka dagaal waxaa ka socda faraha loogu gubtay turkiguna waddamada deriska buu ka mid yahay oo baddan la isku haysto dhinac ka kulaala marka culaysku wuu soo gaaray waana wax mataqaanaa xadkaaga ka dhacaya dee ku soo gaarayaan marka taas ayuu u saaray culays u saaray inuu mar uun soo afjaro dagaalkaas wuxuuna ka codsaday hoggaamka caalamka madaxda nabadda jecel oo sidoo isagoo hadalka u dhigee in ay garab naga siiyaan weliba khaasatan United Nationku inay door muuqda ka qaataan sidii labadan dowladood miiska wada hadalka loo keeni lahaa
cabdixaafid injineer waa kaga haddaan Ukraine iyo Ruushka sii joogno dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxaan ognahay meelihii ugu qaraara inuu marayo waxaan haatan arkaynay saxaafadda caalamka oo baafinaysa Ruushka iyo dad fara badan ay ka baxsanayaan oo diidayaan dagaalka ka qayb qaataan dhinacna dagaalkii waa ka socda markii uu shalayto Ruushka ku dhawaaqay 300 oo kun oo ciidamo reserve inuu howlgelin doono dagaalkii xaguu marayaa Ruushka 300 oo qof ma ku guuleysan doonaa inuu soo aruuriyo waa ku guulaysanayaa oo taas shaki kama taagna waana tan keentay qayladhaan aad iyo aad u fara badan ka keentay hadday tahay mataqaanaa washington d c london iyo baris intaba aad baa looga qayliyey waxaa muuqata inuu cududiisii xoogaa kor u qaadayo weliba ciidamadii regularka ma aha buu leeyahay putin wuxuu noo sheegayaa uu leeyahay waa reservist wey dadka aan keenayno ma aha wax weyn ma aha reservist laakiin aan doonayno maaragtay inaan xaaladda ku dejinno oo nimankan hadda maalmahan guulaha iyo waxaa sheeganaya maaragtay lagu dejiyo runtii arrintaas waa arrinta ugu weyn uguna hadal haynta badan hadda madaxda khudbadaha ka kala jeedinaya un-ta general assemblyga un-ta runtii arrintaasaa aad iyo aad loo hadal hayaa haddaan kusii soconno chineska ka hadla iyaguna arrinta ruushka ukraine waxayna iyagu dalbadeen in wada xaajood bilaa sharuuda la galo fikirka chinesku halkaasuu ku aadan yahay ukraine bilaa xaajood wada xaajood bilaa shuruuda muxuu ula jeedaa ila meesha shuruudaha la isku hayaa madaxaajood bilaa sharuuda wuxuu isku hayaa in miiska la wada fadhiisto inaan ciduna sharuud ku xirin oo aanay dhihin haddaan waxaas la yeelin miiska tegi mayno macnaha in marka hore horta miiska wadahadalka la wada yimaado iyadoo wax sharuuda aysan ku xirayn imaatinka miiska wadahadalka halkaas way meesha u socoto runtii ujeedka ukraine hadda wuxuu yahay khaasatan dhinaca aan idhaahdo koonfurta gobolka kherson iyo bartamahaba in ay joojiyaan logisticada ruushka ciidamada lasoo daadguraynayo hubka lasoo daadguraynayo qaabka ay mataqaanaa ma joojin karaan laakiin qaabkii ay ku maaragtay ku adkayn lahaayeen inaanay qulqulka imaatinka maaragtay ciidamada iyo raashinka iyo hubka iyo waxaa sidii ay maaragtay ay u qashqashi lahaayeen ama ay maaragtay caqabad ugu noqon lahaayeen ayay aad uga shaqaynayaan runtii taasuna waxay caddaynaysaa inuu ruushku kor u qaaday dagaalkii inuu maaragtay culays fara badan saaray nimankii maalidhood lahaa waa durdurinaynaa inay maaragtay runtii qayladhaantooda ayaga laftooda yeerto waxaa kaloo cabdixaafid oo lasoo sheegayaa oo warar hoose aan ku maqlaynaa inuu ruushku meelo fogfog ka duqaynaya midda kale rasaas meelaha ay ku jiraan dhifaysyadooda oo rasaas roob uga dhigay weliba noocaan hore loo arago laleeyahay waxa kanu maxay yihiin caalamku la yaaban yahay lana cambaaray reer galbeedku cambaareeyeen ayaa la sheegayaa runtii dagaalkuna haddeertaan meel aad iyo aad xasaas u ah ayuu marayaa wixii ku soo kordhana waa la soconsiinayna daawadayaasheeda qiimaha leh wagaag aad iyo aad injineer umahadsan tahay daawadayaal soo dhawaada falanqaynta siyaasadda ayaa daawanaysaan meel kastoo dunida ka joogtaan haddaadan brit somali t v hore ugu xirnayn waxaan kaa codsanaynaa inaad documentay si aanu isku weheshano haddaad hore inoola joogtina sharaf iyo karaamay noo tahay laantiin waa abaar injineere madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka hadlay un-ta qodobada uu aadka u taabtay ee markaas culayska uu saaray maxaa ka mid ahaa baa leedahay runtii qodobada ugu waaweyn qodobka ugu horeeya soomaaliya maanta caqabada ugu weyn ku haya horta waa qodobka argagixisada wey qodobkaas waa qodobka soomaali ay tilaabo ka rogi la'dahay qaraxyo joogto ah dil joogto ah dhiiggaasoo qulqulaya dhowr asbuuc ka hor anigu magaalada muqdisho ayaan joogay hotel baa la weeraray oo la qabsaday alxayaad la yidhaahdo hotelkaas hadda wixii lagu sameeyey waa la ogaa dad badan oo masaakiina oo waxba galabsan ayaa dad iswada qarxinaya oo wada miinaysan ayay hal mara soo galeen ujeeddada ay leeyihiin waa uun argagixi cabsi geli ha baqaan dadku ha kala cararaan yaan habeen nolol lagu seexan yaan la soo toosin weeye waxaana muuqataa abaabul ballaaran in la sameeyey oo la rabo in dagaalka maaragtay sida ugu dhaqsaha badan nimankaas looga soo farxasho baktigooda laga tillaabsado
waa sida uu xasan sheekh leeyahay marka arrintaas horta ugu weynaed arrinta uu ka hadlay laba qodob oo kale ayuu ka hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodob wuxuu ahaa qodobka abaaraha oo iyaduna runtii farac xun soomaalida ku haysa waddanku waa waddan abaar roob ma arag muddo dheer roob kama di'in runtii dhulku wuu qalalay iyadoo weliba argagixiso dadkii laynayso dadkii waxay cunaan la ayay ceelashii ka duugeen biyihii ka joojiyeen isgaarsiintii bay joojiyeen dadkiiba mataqaanaa jidadka u galeen dad shacab ahoo baabuur saaran ayaa lagu qarxinaya la gubayaa tuulooyink bay waa laba cadow gaajo iyo colaad gaajiya colaad laba cadow oo aad iyo aad u daran cidda ay isku helaanna ayba halis ugu jirto inaanay ka soo kabanin mar dambe arrintaas aad buu uga hadlay xasan sheekh maxamuud wuxuu tilmaamay soomaalidu siday diyaarka ugu tahay una hurto nafteeda iyo maalkeeda iyo wax kastay awoodo in ay mataqaanaa ka adkaato cadowdan qodob kale ayaa jira cabdixaafidow oon anigu indhahayga soo saaray kala dhoweeta markaan magaalada muqdisho tegey qodobkaasoo ah climate change isbeddelka cimilada soomaaliya fara kulul buu ku hayaa waxaa ka tegay london oo hawadu ay tahay adigu dhowr iyo 38 ay si fiican u kulushahay oo mataqaanaa maalmihii haddana aad ku kululeed bay ahaydee waxaa tegay muqdisho oo dhaxan iyo qarqaryo lala joogi kara la'yahay oo temperatureku under 20 yahay wax cajiib ah weeye in maaragtay yurub oo qorrax ah oo aad iyo aad u kululo maaragtay bannaanka loo bixi kara la'yahay in ay maaragtay soomaaliya oo aan ognahay average temperatureka 34 ilaa 36 weeye soomaaliya average temperaturekeeda sanadkii marka la isku celceliyo waddankii average temperaturekiisu saas ahaa inaan dhaxan weliba aniga qabow baa igu soo dhacay oo 2 cisho ayaan u jiifay qaboobahaas marka wax cajiiba weeye waxaad dareemi kartaa marka culayska ay isbeddelka cimiladu ay dalkeenna ku hayso qodobkaasna xasan sheekh maxamuud si fiican buu uga hadlay waana runtii arrimo hadda taagan arrimaha uu ka hadlay muhiim ah injineere qodobkan kusoo gabagabeyna dilaya daawadeer oo diin maad celinayna injineere waxyaalaha kaloo madaxweynuhu aadka u taabtay waxaa ka mid ahayd soomaalidu inay dad geed adag ay yihiin oo dhinacooda dhulka la dhigi waayey oo ay quusan waayeen oo aysan rajo dhiginin arrintaasu dad badan baa u riyaaqay oo yiri waa wixiina lagu yaqaanay awooyaasheena nagala dardaarmeen abaanu ka dhaxalnay soo dhawow aad iyo aad cabdixaafidow arrintaas waa arrin jirta weeye ummadaha soomaalidu saan la soconnaba 30 sano ayuu dhaafay maaragtay dagaalka sokeeye culayska abaaruhu ku hayaan waxaan xasuusanaa 2 abaarood oo aad iyo aad u waaweyn oo midna la yidhi mataqaanaa nus milyan baa ku dhimatay midna waxa weeye waxaan nus milyan ka yarayn baa ku dhimatay waana soo mareen haba ugu daraata tii 2011 ee erdoganna noo soo gurmaday runtii markaad eegto colaadda aan dhammaanin ee dabada dheeraatay ee ummaddeenna haysa iyo sida dadka niyaddoodu ay tahay markaad aragto anugu hadda markaan tegey waxaan la yaaba dadku moralkoodu aad buu u fiican yahay qof kastood la sheekaysata wuxuu ku leeyahay waxa kan waa ka gudbaynaa wax ka daran baana soo maray maaragtay shabaabkani waxaana waa la baabi'inaya dadka niyadda macnaha qofku marka way nool yihiin dadkii waxaan ku tilmaami karaa waa dhuxul hoosta ka nool waay oo korka dambas loo maleeyo laakiin hoos waa kulusha marka dadku way nool yihiin maahe weliba karti iyo waxa ku jirta iyo nolol baa ku jirta marka waan la yaabaysaa dadka qaraxaas ku dhex jira suuqyadii aan ka adeegan karin mararka qaar socodka uusan xor ahayn muddo dhan oo magaaladu ay kala xereed soo maray haddana yididiilada ka muuqata cabdixaafido wallahi laga sheekan karana maaha waan la yaaba aniga injineer waa hubaa taas arrintaas anigii dad kale faro badan oo soomaalida dunida jooga wanaagii horumarka jecel aan ahayn kuwa dhiigga iyo qalalaasaha ka beec mushtara inay aad iyo aad ugu farxayaan ummadda soomaaliyeed waa meeshay u dhimato inaadan weligaa niyad jabinin rabbi tala saaratid berita maalin wanaagsan baa soo socota dalkeennu saan ahaan maayo ina maca alcusri yusra la yidhi maalin dhow hore ayaan u ruqaansanayna insha allahu tacaala soomaalidii asalka ahayd oo la yaqaano gobta ahayd waa soo socotaa marka yaan la niyad jabin mustaqbalku waa wanaagsan yahay injineer waa kuu mahad celinaya boqolkiiba boqol allah ku ciseeya allah ku sharfo daawada idinkuna waa mahadsantihiin jamco wanaagsan baan leenahay soomaalidiida ceeb naftiina ka dhowracay nabadgelyo